Salaamu calaykum caruurey. Sheekadeenan maanta waxay ku saabsan tahay ammaanada. Caruurey, Cabbaas waa inan yar oo fariid ah. Inuu ciyaarana aad ayuu u jecel yahay. Maalin maalmaha ka mid ah, Cabbaas hooyadii wuxuu ka dalbaday inay u fasaxdo inuu bannaanka ku soo ciyaaro. Waxaanuu ku yidhi, Hooyo, waxaan rabaa inaan bannaanka ku ciyaaro. Ii ogolow oo ii fasax inaan dibadda u baxo. hooyadiina waxay ku tiri caruurey, haye wiilkaygii, waad bixi inshaa allah. Markaad baxaysana ducada lagu baxaaya ha ilaabin. Sidoo kalena hooyo, meel fog ha tegin. Dadka aadaad garanayna ha la hadlin. Caruurey, Cabbaasna wuxuu yidhi, Haye hooyo macaan, mahadsanid. caruurey, Cabbaas wuu faraxsan yahay. Bannaankii wuu u soo baxay. Ka lugta lagu wado ayuu soo qaatay. Koofiyadna madaxa ayuu ku xidhay. Waayo koofiyaddu haddii aad dhulka ku dhacdid, madaxa ayay ku ilaalinaysaa si aanu dhaawac kaaga soo gaadhin madaxa. Waa muhiim in la xidho baaskiilada marka aad wadid ama aad kaxaynaysid. Ta lugta lagu wado inaad koofiyadda madaxa xidhatid. Caruurey, Cabbaas wuxuu yimi meesha lagu ciyaaro ee ay yaalaan alaabta carruurta ku ciyaarto. Sidoo kalena kubbad ayuu soo qaatay. Kubaddii ayuu ku ciyaarayaa. Isagoo ciyaaraya caruurey, Cabbaas wuxuu helay shandad yar. Wuu soo qaaday. Markuu fiiriyey, lacag fara badan ayaa ku jirta. Caruurey, Cabbaas wuu fikiray isagoo aad u faraxsan. Waayo wuxuu u baahnaa baaskiilad inuu soo iibsado. Wuxuu ku fikirayaa inuu soo iibsado baaskiilad maadaama uu helay lacag fara badan. Caruurey, Cabbaas lacagtii jeebka ayuu gashaday. Kabtiisa ayuu rabaa inuu xidho oo xadhigii ayaa ka furmay. Isagoo kabtiisii xidhanaya, nin ayaa u imi. Ninkaasi waxoogaa ka hor halkan ayuu joogay oo uu ku ciyaarsiinayay carruurtiisa intii aanu Cabbaas imanin meesha. Cabbaas yare wuxuu ku yidhi, adeer salaamu calaykum. Cabbaasna caruurey salaantii ayuu ka qaaday. Waxaanuu ku yidhi, Wacalaykum salaam. ninkii wuxuu ku yidhi caruurey, Cabbaas, Shandad lacag ku jirto ayaa meelahan igaga dhacday. Ma aragtay? caruurey, Cabbaas wuu fikiray. Wuxuu is idhi, talow ninka lacagtiisa adaa hayee ma u calisaa mise waad haysataayo waxaad ku soo iibsataa baaskiiladii aad ku riyoon jirtay inaad hesho. Kadibna caruurey, Cabbaas wuxuu soo xasuustay markii hooyadii uga sheekaysay rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam inuu ahaa qof aamin ah, ammaanadana siiya dadkii lahaa. Reer Makana waxay u yaqaaneen al-amiin as-saadiq. Caruurey, Cabbaas wuxuu rabaa inuu ku daydo rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam. Ninkiina shandadiisii ayuu u soo bixiyey oo wuu siiyey, isagoo go'aan ku gaadhay inuu u caliyo ammaanada qofkiiska lahaa. Ninkiina caruurey, Cabbaas wuu u mahad caliyey waanuu u duceeyey isagoo ku leh, adeer, inan yaroo aamin ah oo fariid ah ayaa tahay. Allaha ku barakeeyo. Waad ku mahadsan tahay inaad ii ilaalisay shandadaydii. Caruurey, Cabbaas gurigii ayuu ku soo laabtay. Hooyadii ayuu uga sheekeeyey wixii uu la soo kulmay markuu joogay meesha lagu ciyaaro. Hooyadiina aad ayay u faraxday. Waxay tiri, wiilkaygiiow, waxaad wanaagsan ayaad samaysay. Abaalgudna waan kuu samaynayaa. Baaskiiladii aad jeclayd ayaan kuu soo iibinayaa. Cabbaasna caruurey wuu faraxsan yahay. Baaskiiladii uu jeclaa ayaa loo keenay. Caruurey, sheekadan gaaban ama filinkan yar waxaynu ka baranaynaa inaynu sheegno runta oo aynaan been sheegin. Sidoo kalena ammaanada in aynu siino dadkii lahaa. Haddii aynu wax helno, waxaasna qofkii lahaa inoo yimaado oo ina weydiiyo inaynu u calino. Caruurey, xabiibkeenna rasuulkeenna ayaynu ku dayanaynaa. Muslimiin ayaynu nahay. Qofka ku dayda xabiibkiisa
Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam Ilaahayna wuu jeclaanayaa, jannada ayuu geynayaa. Caruurey, hooyo iyo aabbana markaad wax wanaagsan samayso way kugu farxayaan, iyagoo kugu faanaya kuna siinaya abaalgud wanaagsan.